xilli subaxnimadii hore ee maanta diyaaradaha dagaalka Itoobiya ay duqeymo ka fuliyeen buurale ku dhow magaalada Agrisalam oo ku dhow magaalada Maqale ee caasimadda Tigreega halkaas oo la rumaysan yahay inay ahayd halka ay joogaan inta badan madaxda TPLF aan ka bixin gudaha Itoobiya sida ay warinayaan weeyaan macluumaadka laga helayo warbaahinta u janjeerta dhanka dawladda ee magaalada Addis Ababa. booliiska federaalka Itoobiya ayaa sidoo kale sheegay in la soo qabtay 38 xubnood oo kamid ah madaxdii TPLF kuwaas oo ay sheegeen in hore dalkooda uga galeen dambiye ay kamid yihiin qiyaano qaran waxaana la sheegay in hadda ay cadaaladda wajahayaan. lama sheegin magacyada dadka la qabtay iyo darajada ay ka hayeen maamulkan balse ismaamul dhan oo dhisan ayaa la rumaysan yahay in lagu duulay taasina ay keeni karto in dad badan oo ka tirsanaa hay'aduhu ay bilaabaan inay laamaha ammaanka isku dhiibaan maalmo kadib markii ciidanka dawladdu ay qabsadeen magaalada muhiimka ee Maqale. duqeymaha cusub ee la fuliyay oo ay bartilmaameedkooda gaarsiiyeen diyaaradaha iswada ee aan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa ka dhigan in la bilaabay beegsiga madaxda TPLF xilli uu dheeraan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ka Addis Ababa hoosta ka xariiqay in la xisaabtami doono. ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay in la socdaan dhaqaaq kasta oo ay kooxdani sameynayso wuxuu cadeeyay in la beegsan doono taasoo durbo u muuqatay inay duqeymo diyaaradeed lagu bilaabay saacado ka hor. waxaa isdhiibay afhayeenkii hore ee aqalka sare ee Itoobiya Khayriye Ibrahim oo ka mid ahayd madaxda sare ee TPLF. xagga Suudaan waxaa lagu qabtay taliyihii ciidamada Tigreega qaybta loo yaqaan maleeshiyada oo gaaraya in ka badan 70,000 oo askari. waxaa la rumaysan yahay in jab badan ciidanka ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay magaalooyinka Shire, Humera iyo Aksum oo ay ka dagaalamayeen buuraleyda ku dhow. dadka sida weyn loo baadi goobayo ee TPLF ka tirsanaa waxaa ka mid ah madaxweynihii ismaamulkaas, taliyihii sirdoonka guud ee Itoobiya General Getachew Asife, afhayeenka kooxda Getachew Rida iyo waliba generaalle ay ka mid yihiin kuwii xukumayay 27 sano ee la soo dhaafay ciidamada Itoobiya. docda kale in ka badan 220 askari oo Itoobiyana kana mid ah kuwii ka farxaday dagaalkii 4 bisha November ay ciidanka Tigreegu ku qaadeen saldhiggii waqooyi ee dagaalku ka bilowday ayaa maalmo dheer kadib soo gaaray deegaano ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka Itoobiya gaar ahaan xuduudda Amxaarada. sinaba way u rumaysan waayeen in ciidankii Tigreega la jabiyay lagana qabsaday dhammaan deegaanada ismaamulkaas taasoo ay qaarkood ka ilmeeyeen markii ay dib u xasuusteen habeennimadii 4 November ee saldhigga ciidan lagu weeraray xilligaas oo baxsadka ay bilaabeen.